دوسني يرتو إنا كهذا ما جعشين نو مسمين كري صاحب كي حنون كيسينا يوتيوب لس أوفر يستو فيوس مكرادين كري يس مسمين كري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام دمانا صحابكم حرن جنال كيغ السمنقالي اوفيشيال واني قو السمنقالي وحارجينا سيدا اني وعافماد قب انا وعافماد قبتين قفك عافماد قب إليه وسياد قفك حنوصلنا الله عافيه بليز تيتا مركو وريس او يسو بوقت سبسكرايب يسار ادي اد امهدسنتا هدا هرنا لا joogtan muuqaalka noo la garay sidoo kale adina aad iyo aad ayaad umahadsantahay waan kaaga mahad celinaa la joogitaankiina sida quruxda badan mar walba ay ila socotiin waxaad ilaa asxaabteeda qaaliga qalbiga inkasoo salaama maanta waxaan noo hayaa video Munir oo aad iyo aad u xanaaqsan oo ka hadlay wuxuu ciwaanka looga soo dhigay maxaan uga hadli waayay saaxiibkay Lii Caato xanuunkiisa markaas la fiirsan kale asaga noo sharax asaga noo rabaa inaan waxyaabo badan ka hadlo waxyaabahaas ka hadlaayeen wax qad i haysta maahan wax muddo soo haysta way oo badan waxaan rabaa like ina iska celiyo dadka qaar iska celisi wax ku leeyihiin ani lama hadlaayo qof walba wanaagsan oo YouTube-kayga ku xiran oo dhanka wanaagsan iyo la dhaqma walaalkood ahay like soo xiriiriyo waxyaabo badan soo share gareeya barnaamijyo badan aan sameyn lahaa sameey dhaha haddii aan lahayd inay iwaaniyaan ani iwaaniya dadka wanaagsan oo ani wax ii sheega ma ka hadlay laakiin waxa jiro dad si qaas ah ani target ah ugu ahay mana aqaan waxa aan ka hadlay mana ahan waxa ii haysto wax hadda kaliya qabsaday min maalinta Malaysia lugta soo saaray maalinta aad bilaabay ina horay u dhaqaaqo ay ugu bilaabatay ilaa hadda way haysataa marka keenin ku noolaa nolosheeda caadi iska ahayd qof walba qof caadi iyo arkay laakiin cadaawad dadka qaar ay qabaan ma Soomaali dhaqankeeda oo sidaas marka Kenya ku nooleed ma aad haysta hadda caan u tahay inkastoo mar walba caan ahayd laakiin sida hadda meesha aan taaganta iyo markaas meesha joogtay isma lahayn kala dadka soo xaniiga kala dad horumarka qaan meesha ka imaatay marka waxaan rabaa dadka qaar aamusnaan kaama celiso dadka qaar kaama celiso inay xushmaysid oo ka gaabsatid arin yaraa jirto ilaahay caafiyo walaalkeen Liibaan Aadan Cali Lii Caato oo xanuunkii ma adduunyada dhan saameeyay oo dhibaatada ku hayo waxyaabo badan lagu hor istaagay ku dhacay waa ka xumahay aad iyo aad uga xumahay waana la hadlay waa la xiriiray like aniba waa xanuunsada marka inta joogo like noocaas waa ii qabtay waa iskarantay like saasay tahay familkayga ka qarinay waana ka xumahay inay ogaadaan hadda in ani aan xanuunsanaa oo xanuunkayga aad iyo aad ugu darnaa familkayga ka qarinay waxa isku dayay inaan wax idiin soo duubo anoo kaniini ku shaqeynay sida Ibrahim Jamilkiisa ka daawateen ama indhayga ka arkayseen inaan xanuunsanaa oo mar nabro korkayga soo baxay mar afka xataa dhuunta gudaha nabar iga soo bax dhakhtar aagay oo daaweyn uu ii soo qoro ilaahay haddii daawooyinka ku qalili way dhuuntaada qaliin way ilaahay alxamdulillah ilaaha ma had iskale daawooyinka markaa la dhuuntii nabarka uu iga naqday laakiin qaliin aan ku sigtay heer qaliin aan ku sigtay agaaray xanuun dartiis saasay tahay waalidkay dartiis aanan banaanka u soo dhigin idinka naxiya diiday marka sababtii Liibaan xanuunsaday isoo waliba safar ah xanuunka uu kala daray qof gurigiisa iska joogay laakiin qof safar aaday oo dhibaa like wax badan isku xiriiriyay dib maray dad meel taagnaayeen qabow dhaxan isi sugayeen xanuunka dartiisa oo baaqay aniga maanta qof waalan oo Munir dhar soo xira aadahaysiin ma ihi wixii saxan iyo wixii qaldan ma ii sheegaysid waxa la hadlaa qof ka xun oo mar walba xumaatada ila daba taagan oo ani inuu sharafteeda iyo bahdil igu sameey isku dayay qofkaas oo kale waa iska dhicina subscribe sheegay waliga daawanin YouTube waa la xiriiray Liibaan familkayga dhan way waceen waa la hadalnay ani waa la hadlay qaasatan waxyaabo ay isticmaal oo waxa jira isku uumiyay shalaydan ugu dambeysay awal hadlay oo wuxuu ugu dhamaamooyina ila joogan daawooyin ay keeneen waxyaabo oo xabad saudi iyo sinjibiil iyo waxyaabo ku uuminay isticmaal ku dhahay anigu waxa isticmaalay waana ka fiicnaaday alxamdulillah waa fiican wada ku imaada xataa ku dhahay saaxib like nafta xilliga go'ayso ilaaha qoray waxba yaa lagu sheegay cudur iyo waxaas waa been ilaahay hadduu ku qorina dhimatid waa dhimani
wuxuu dhahay saaxiib ha imaanin ana meel ku karantiilanay hanad iyo xataa qola ugu sii xiranay ha imaanin oo dhahay inuu ku effect garay marabi daawooyinka waa cunaa meel waxa ku dhahay meel hajiifan waa wada hadalna laba qof oo saaxiib aan nahay oo ka wada hadlo wax walba qasab ma aha inay YouTube ka soo fadhiisto ay isweysiiyo aad oo liibaana xanuunsanay muwaalintihin qof saaxiibkii xanuunsan sidee inay YouTube imaado baqbaq ugu dhaha qasab miya inay ku ogeysiin ina la hadlo qasab ma aha waa la hadlay waa wada hadalnay lay waa isticmaal wax walba uu leeyahay xaaladiisa taaka oo socda mise bal wuxuu sameynay fiir saaxiibkiisa xanuunsan ma soo hadlay qasab miya aniga ma aqaan sababta aad target dhiganaysiin dadka qaar ma ogi waay maxaa dhacunta aan leedahay ma cuni wax aad ii tartid ma leh shilin aad isiisid ma leh qof banaankiisaas maro qofna aanan caynin qofna aanan hamanin qofna aanan qof kale horumarkiisa aanan ka xumayna iska ahay haddii asxaabteeda qaaliga sida u jeedinba Muniiro xanaaqsan sida Ilaahay og yahay kala xanaaqas Ilaahay kaliya dareemi kara iyo inta wax garadka horta midaan ku sheegaa Muniiro inaa maanta isxanaajisid oo meel ka soo istaagtid dadka dhiig isku kicsid horta ma istaahilaan sababtoo ah hadday aqli leeyihiin way dareemi lahaayeen muhiimadu ma aha inaan taa qof soo hor istaagtid ama kaamid soo hor istaagtid aad tiraahdo saaxiibkay xanuunsan saan waa aadana oo asaga iska hadlo oo si asaga ka aaminsan yahay meel baalka ama comment kuugu soo qara oo meel ku soo fadhiistana inaa dhiig isku kirisid ama energy-ga iskaga bixisid ma istaahilaan isla qofka sababtoo haduu wax garad leeyahay ama aqli leeyahay qofka bini'aadanka asaga shakhsiyadiisa leh asaga wuxuu yahay hadalkiis waxba kama bedelo marka aniga waxaan ku dhihi lahaa waxaa tahay adaa baalka la yiraahdo waxa dadnimadaada iyo saaxiibtinimadiina iyo wax adin liicaata in ka dhaxeeyo adinka in ka dhaxeeyaan shalay qof saaxiibtinimadiina baan kala maadna tashan haddaa kala haraysin qof kala maadna tashan laakiin dad bini'aadan ina dhiig isku karisid oo meel inta usoo istaag dadka aniga waxaan ku dhihi lahaa iska yas haba la sheekaysama dadka sababtoo qof aqli lagu dareemi karaa mid kale muhiimadu maaha inaan ta meel soo fariisid aad tiraa saaxiibkay xanuunsan saan waayo waxay u soo kordhinaysa malahan muhiimadu waxa waa qofka saaxiibka ama walaalka ama ehelkaaga inaad ka warqabtid oo xiriirisid oo baalkal xaalad walba uu ku sugan yahay aad la socotid muhiimadu waa midaas kale midaasna kolay adaaba hadda sheegaysid waxa tira mar walba wada hadalnaa wax walba xaalad walba waa isla ognahay wax walba sameynayna waa isla ognahay just dadka marka adiga ku waalayaan waa dad comment ku diglayaal iyo dad af ku diglayaal jiro qof walba meel isku soo fariisa wuxuu rabo iska sheegaa horta liibaan walaalkeen liibaan cali ilaahay caafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar walba waxa ugu baryaynaa inuu caafimaad waara siiyo xanuunka waa la dareemaynaa adigana saaxiibkiisa taa waxa ila tasqaasa oo la dareemaysaa marka waxa ku dhihi lahaa dad bini'aadan ha iska dhaadhicin ee waxa adiga aad tahay mar walba ayaa tahay waxaan ku dhihi lahaa xumeed ku fiicnaynaysa ma jirto haddaa xuntaana qofku xumaynayso ku dhahaysa waa xuntaa ma jirto marka aniga waxaan ku dhihi lahaa waxba dhiigga isku karin walaalkay qaaliya dadkaana waa Soomaalideena ka waalitaan sanadadan dadkan waxay barteen dadka inay ka waalaan comment xunaan iska ka soo qoraa kuma yaqaaniin waxa taa ma yaqaaniin xaaladaada lama socdaan waxa aad ku suganta ma yaqaaniin way iska kacaynayaan freedom marka hadalkayga intaas ku soo gabagabeynaa asxaabteeda qaaliga waxaan idinkaga tagaa qaaliga waa no videogan iyo videoga xiga mar walbana waxaan ka codsanaa inaad subscribe iyo saartiin idinku aad iyo aad